xildhibaan xasan cumar axmed maxamuud iyo xildhibaan xirsi ciise jaamac oo ka soo jeeda gobolka sool kana tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxay baaq u direen beelaha walaalaha ah ee dirirta colaadeed ku dhex martay koonfurta gobolka sool dhanka kale waxay tacsi u direen intii halkaasi ku dhimatay xildhibaanada ayaa waxay dowladda Soomaaliland iyo beelaha gobolka soolba ugu baaqeen in arrintaas si degdeg ah wax looga qabto degmada tuulada la dhumay la socod koonfurteeda arrintaasoo in badan soo noqnoqotay hadda ugu dambeysayna shirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha baarlamaanku ay in badan la socodii joogeen waxa la filayay maanta in wixii xaq ahaa iyo xoolo loo kala xukumay in la kala siiyo ayaa la filayay maanta way u kala baxaan laakiin maanta in dagaalkaas soo noqdo wax la filayay maaha waa waxa looga xumaado waa wax yacnaha aan dhegtu ayaan maqli karin waa waxaanu aad aan uga xunnahay dadka gobolka sool deganna waxaa leeyahay arrintaa iyada ah waxay idinku haysaa magac iyo maamusxubo weyn bay idinku haysaa waxa lagu xiisaa ka maqlay weyn baraar dilaaceen ka dagaalama reero dadka ciddii maanta hawshaa ku soo duushay ee dagaalka maanta bilowday waxaa leeyahay gacan bira dowlad iyo shacab ah la isugu tago gacan bira arrintaa wax laga qabto arrintan hadii hal xakameeyo hal joojiya la isku eegine arrinta intaas ku soo gabagabeynaya wixii dhintay samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo qaraabadii iyo ehelkii awl khayr qabay ilaahay ha ka siiyo wixii dhintay wixii dhaawacmay ilaahay ha booga dhago waxaan taasi uga dirayaa dagaalka ka dhacay xalay meesha la yiraahdo dhumay dagaalka maalintii hore waa tii la soo afjaray cid waliba waa tii u kacday waa la soo afjaray sababta soo celisay annagu maanaan garan waxa weeye meesha tani madax salaax xun bay u baratay laakiin dangerous may gaadhin weli maanta dangerous kay gaadhin dadka askarta joogta dalka iyo shicib hal kaco gacan biraha lagu qabto waliba nimanka magac sheeganaya ee cid kastaba ha ahaadeen han kastaba ha ahaadeen gacan bir meeshii eedda la saaray ha ku qabteen waa inaanay u kala hadhin waa inay maanta jawaab cad ka bixiyaan war waxa kani waa maxay yihiin waxaan sawtaynu dhammayn jiray maaha waxaan sawtii odayaal u kici jireen maaha odayaasha way dhaaftay dawladdii way dhaaftay wax kasta way dhaaftay annagu waxaanu leenahay wixii dhintayna ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo wixii kalena ha loo taliyo anigu waxaan ku soo gabagabaynayaa halkaas waliba qabiilka weyn ee magaca dhulbaanta sheeganaya gacan bir ha saareen oo ha u kaceen yaani dub uga fadhiisan maxamed jaamac umal warbaahinta SBC Hargeysa.